xildhibaan xaaji cabdi xuseen xaaji cabdi waraabe oo ah odayga ugu weyn Somaliland oo maanta si gaar ah ula hadlayay TV-ga caalamiga ee Somali News ayaa fariin u diray golaha guurtida Somaliland wuxuuna ugu baaqay in aysan ku dhex milmin xisbiyada siyaasadda ku hirdamaya isla markaana ay dhex u noqdaan saddexda xisbi qaran. xildhibaan xaaji cabdi xuseen xaaji cabdi waraabe ayaa sidoo kale fariin u diray musharaxiinta ku tartamaya jagada madaxweyne ee dalka isla markaana wuxuu ugu baaqay in ay ilaaliyaan nabadgelyada isla markaana kii kasta ee ku soo baxa kursiga ay u haneeyaan labada kale. sidoo kale xildhibaan xaaji cabdi xuseen xaaji cabdi waraabe ayaa fariin u diray shacabka ku nool guud ahaanba Somaliland isla markaana wuxuu ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada sidoo kalena qof walba uu u codeeyo si nabadgelyo. xildhibaanku arrimahaasi ka hadlaya wuxuu golaha wuxuu ku caam noqday wadajir. golahu waa guurti magaceenu waa dhex dadkaynanu luxu noqonaa aynu guurti ahaanaa u siman waraaqda ninba ninkuu doonaha ugu rido laakiin odhaahdeennu waa inay u sinaataa xukuumadda. guurtidu taladeedu waa inay mid ahaataa. waa midkaasu waa kuma waa nabadgelyada. waxaa dhameeyey guddoomiyaha wixii la odhan lahaa guddoomiyahaa dhameeyey. waxaan leeyahay guurtidu meelay joogtaba waa inay dhex noqotaa. meelay joogtaba inay dhex noqotaa oo xisbi wuxuu shaqaynaya aynaan iska dhigin. xisbiyada waa badhnaa laakiin waraaqda ninba ninkuu doonuu isagoo aaminsan waa inuu ugu ridaa. ha iska ilaaliso guurtidu xisbi ay u shaqayso. qolada madaxnimada doonaysa ee tartamaysaa si sharafla waa inay u tartamaan. ninka iminka khilaaf kiciya ee caytamaa ama rabshad kiciya xagguu wax ka doonaya? isagaa dadka iska eryaya. waa inay sidii loo doonay waxaasaan qaban waxaasaa dhiman biyii baa dhiman sibirkii baa dhiman. adduunku ma dhammaado intuu dhisan yahay dhammaan maayo. si basarraha u tartamayn laakiin buuqiya iyagii madaxnimada doonay kicin. ninkaas ninka imanka buu kiciya xagguu ku socdaa? isagaa isridagey. iska ilaaliya saddexdeena nina tartamaya iyo kaaliyaashu ha iska ilaaliyeen inay rabshad kiciyaan. magac baynu ku leenay nabadgelyada. magaca haynaga diminina. gobonnimadu waa nabadgelyada. si sharaf lou tartama waxaasaan qaban waxaasaa dhiman kaasaan ku dari halkaasaan kor. tartankii nidaamka ahaa haqaya oo ka wada laakiin aqal la wada raray iyo baabuur la burburiyo iyo idinka yaydinka bilaabmay saddexdiin idinkoo isjecel ku wada rida. ninbaa kaa doonta ugur shicibka ninbaa ninkaa doonta ugur idinma kala xigaan. waa xisbi quraylan idinma kala xigaan. ninaan habuuqin ninaan hacaynsamin ninaan gobonnimada haynaga gaabaynin. waxaan leeyahay shicibku rag iyo dumar macallimiinta ardada dhakhtarada askarta waxaan leeyahay mid ahaada idinkoo iswada jecel waraaqaa ku rida. nin maalinkaa doonta adoo qoslaya ugu rid laakiin nin caysamaa inaga mamnuuca iyo nin rabshad kiciya yaa inaga mamnuuca. nabadgelyadaa nin walba adigu hadday nabadgelyo inooga dhacdo nin waliba waa madax.
hadduu buuqa naga dhasho waa baaba caalamka ina eegaya muftiyo badan baa inoo yimi oo inala jooga waa layna eegaya dee sharaf ha laynagaga tago ha layna ammaano Somali News Hargeysa.